Assalaamu calaykum walaalayaal. Kusoo dhawaada qiso yar oo cajiib ah. Wiilkan yar waxaa la dhahaa Mangu waalidiintiisa lama noola oo way dhinteen. Haddana maalin nololeedkiisa dadka kama baryo. Maalin maalmaha ka mid ah kabihiisa ayuu soo xirtay wuuna soo baxay. Wuxuu soo aaday adeerkiis meel ka shaqeynayo. Adeerka ayuu u imaaday wuxuuna ku dhahay adeer shaqo ma isiini kartaa. Adeerkii gacmaha ayuu u meedaaray mixnaheedu ah shaqo kuma hayo soco. Mangu wuu soo baxay niyadiis kama jabin oo wuxuu soo aaday dukaan kale. Dukaankii ninka markuu u soo galay ayuu wuxuu ku dhahay maxaa rabtaa. Markaas ayuu ugu jawaabay shaqo ayaan rabaa. Markaas ayuu ninka ku dhahay sideen shaqo kuu siiyaa waxaa tahay cunug yar. Soco ayuu ku dhahay waayo aniga waa la xirayaa sababtoo ah cunug yar ayaan shaqaalaysiiyay. Wuxuuna ku dhahay kacbax oo qof kale ka raadsa shaqo. Wiilkii markuu ka tagay ayuu haddana dib uga wacay wuxuuna siiyay buskut wuuna u mahad celiyay wiilkii yara. Mangu wax uu qabtay ayuu garan waayay. Qof kasta markuu u tago wuxuu ku leeyahay shaqo kuma hayno. Wuu soo baxay wuxuu soo istaagay ilbaabkan ayuu iskaaga ciyaarayaa. Ninkii waardiyaha haddana wuu soo ciiriyay. Mangu wuu soo baxay oo wuxuu u imaaday ninkan wuxuu weydiisanayaa shaqo. Wuxuuna ku dhahay shaqo miyaan ka heli karaa. Ninka ayaa wuxuu ugu jawaabay wiilkaygiyow haddaan shaqo ku siiyo xarunta u xilsaaran xuquuqda ilmaha way iga xirayaan ganacsigayga mana lahan shaqo caruurta yar. Ninkii Mangu ayuu wajiga u salaaxay asagoo micnaheedu ka wada waa ka xumahay. Mangu wuu soo baxay oo maskaxdiisa waxaa ka dhex guuxayo wixii la oranayay alla maskiinsana. sidoo u soo socday wuxuu u imaaday ninka telefoon ayuu ku hadlayay. Wuxuu arkay cunug yar oo meesha taagan. Maxaa rabtaa ayuu ku dhahay waxaan rabaa shaqo. Kor u hadal ee maxaa rabtaa. Markaasuu ku dhahay shaqo. Muxuu weydiiyay haddana magacaa. Markaas ayuu ku dhahay Mangu. Mangu. Ninkii wuxuu Mangu ku dhahay diyaar ma u tahay wax kastoo aan ku dhaho inaa qabato. Mangu hadal wuu soo celin waayay. Ninka si xun ayuu u fiirinayaa haddana mindi ayuu haystaa. Wiilkii yaraa wuu cabsaday wuxuuna ninkii haddana dhahay diyaar ma u tahay mana diidi kartid mana hubtaa. Waxaan ku dhahay mana diidi kartid. Mangu wuu iska qaatay oo wuxuu raadinayay shaqo. Hadduu mar shaqo helay wuxuu leeyahay yeena kaa baxsanin haya ayuu dhahay. Wiilkii yaraa Mangu soo galay ayaa lagu dhahay ninkii wuxuu u moodayay si cadowtinimo inuu ugu shaqaysani doono balse asxaannimada uu u falay bal fiiri. Wuxuu geeyay iskuul wuxuuna ku dhahay markuu iskuulka sii galiyay idagayso si quman wax u aqriso waxaana kuu rajaynayaa khayr badan. qisadeena halkaas ayay noogu eg tahay balse cimri qaadashada ayaa waxay tahay ilmaha yar inii loo horseedin jidka xun balse ay tahay inii la tusiyo dariiqa wanaagsan si ay ugu dhaqmaan. waxaana qisadeena la socodsiinaysay anigoo walaashin Hani ah. fadlan haddii nagu cusub tahay subscribe like-kana noo saar commentigana noogu reeb wixii fikradaada ah. waana ku mahadsan tahay sida muuqaalka u dhameystiratay. intaana muuqaalkiisa xiga ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.